waxay ahayd aroornimo hore oo bisha ay ku beegnayd 5tii Juun 1967 waxaa qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyay dalalka Carabta iyo Israa'iil. waa dagaal la magac baxay dagaalkii 6 bari. afka Cibriga ama Yuhuudana waxaa lagu yiraahdaa milhimaad sheeshaad hayamiin. dagaalku wuxuu ahaa mid saansaantiisa hore looga dareemayay dunida Islaamka. dagaalku wuxuu ahaa mid ay isha ku hayeen dawladaha Carabta iyo kuwa Islaamka, iyadoo rajo wanaagsan laga qabay in Israa'iil dagaalkaasi dhulka lala simi doono kibirkeeda iyo dhulbalaarsigeeda. haddaba waxaa dhanka Carabta weerarka qaaday hoggaanka u hayay dalka Masar, waxaana weerarka la qaaday Syria, Jordan, Ciraaq iyo Lubnaan. waxaa dagaalka si hoose iyo si aan qarsoodi lahayn gacan weyn ugu geysanayay dalalka Algeria, Kuwait, Libiya, Morocco, Pakistan, Falastiin, Suudaan, Tunisia iyo Sacuudiga oo markaasi aan taageero toos ah ku bixinayn, maxaa yeelay khilaaf xooggan oo markaasi ka dhex aloosnaa boqorkii Sacuudiga Faysal bin Cabdilcasiis iyo hoggaamiyihii dalkaasi Masar Jamaal Cabdinaasir. natiijada dagaalkaasi waxaa fahmi kara qofkii alla weyne oo xigmad ku manaystay, ama qofkii arrimaha dagaalka ee Quraanka iyo Sunnada ku soo aroortay si fiican u fahamsan. xigmadda uu alla weyne ka lahaa dagaalkaasi waxaa og alla oo keliya. waxaa dharbaxyo xun lagu dhuftay dawladihii Carabta ahaa ee weerar ku qaaday Israa'iil. Suuriya waxaa laga gubay 6 diyaaradood, halka Masarna laga duqeeyey xarumihii diyaaradaha weerar ku ahaa Israa'iil ay ka soo kacayeen. isla markaana Masar waxaa laga qabsaday saxaraha Sinai. Carabtii iyo muslimiintii kale waxaa ku dhacay kala carar iyo kabtay ma aragteen. Israa'iil waxay dagaalka ku qabsatay masjidka barakaysan ee Qudus, waxayna Israa'iil dab qabadsiisay qayb ka mid ahaa masjidka. sida taariikhda lagu hayo waxaa jiray hoggaamiyaal muslimiin ahaa oo si aan qarsoodi lahayn ugu soo horjeeday arrimaha Israa'iil ay ka waday dhulka Falastiin, inkastoo kuwaasi hadalkooda uu ku ekaa afka oo keliya. boqorkii Sacuudiga xilligaasi ka talin jiray boqor Faysal bin Cabdilcasiis, allaha u naxariistee, ayaa si aan qarsoodi lahayn ugu hor yimid arrimaha Israa'iil ee ka wado dhulka Falastiin. Faysal wuxuu albaabada ka soo xirtay cid waliba oo doonaysay inay waawaan ku dhammayso arrimaha Israa'iil ee ka wado dhulka Falastiin. wuxuu cid waliba u sheegay in marka koowaad Israa'iil laga saaro dhulka Carabta, markaa kadibna wadahadal uu la geli karo cid alaala iyo ciddii doonaysa arrimaha bariga dhexe oo dhan. haddaba boqor Faysal bin Cabdilcasiis ayaa waxa uu qaatay go'aan aan hortiisa ama gadaashiisa aan la qaadan, isla markaana aan la filayn in go'aankaasi oo kale uu qaato qof maanta dunida ku nool geesinimo darteed. boqor Faysal oo ka warqabay jabkii loo geystay Carabta wuxuu dareemay in Israa'iil ay taageero buuxda ka haysato Maraykanka iyo waddamada kale ee reer Yurub oo Ingiriiska horkacayay. wuxuu wareegto ku soo saaray inaan wax shidaal ah laga iibin karin dalalka Maraykanka iyo xulafadiisa. wuxuuna si aan qarsoodi lahayn dadka ku baraarujiyey in aysan marnaba ku hoos noolaan karin gumaysi iyo diinla dirir aan meelna loogu soo gamban. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم، فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل؟ haddaba go'aankaasi uu soo saaray boqor Faysal waxa uu wadnaha gooyey Maraykanka iyo xulafadiisa. waxaa waddamada reer galbeedka ah laga dareemay shidaalkii laga keeni jiray Sacuudiga. waxaa safaf dhaadheer loo galay goobaha shidaalka laga iibsado. dadka badankooda waxay u geeriyoodeen qabow daran oo waddamadaasi ka dhacayay iyo shidaalka oo markaasi howlo badan ay u adeegsan jireen. si arrintaasi looga hortago, CIA-da Maraykanka waxay dejiyeen qorshe lagu qaarijin lahaa boqor Faysal bin Cabdilcasiis. waxaa dalka Maraykanka gudihiisa lagu tababaray wiil uu adeer u ahaa boqorka, kaasi oo lagu magacaabi jiray
faysal bin musaacid waxaana loo soo dhiibay bistoolad 25kii bishii Maarch 1975 faysal oo CIA-da Maraykanka ay adeegsanayeen wuxuu u soo galay boqor faysal oo ku sugan xaruntii boqortooyada ee Riyadh wuxuuna la socday wafdi ka yimid dalkaasi Kuwait faysal wuxuu u soo dhaqaaqay dhanka boqor faysal isaga oo markaasi iska dhigaya qof madaxa ka dhunkanaya boqorka wuxuuna 2 jeer madaxa ka toogtay boqor faysal bin Abdulcasiis haddaba ninkaasi wuxuu isku dayay inuu ka baxsado goobta laakiin waxaa gacanta ku dhigay ilaaladii boqorka وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله halkaasina ayay ugu dambaysay boqor dambe oo Sacuudi ah oo ka hor yimaada Maraykanka iyo danihiisa